وقافته oo inooga wakiila culimada Soomaaliland sida ay isu keen garab taagi lahayd inaynu arinta iyada aynu hirgelino oo halkii diintu ay dhigtay aynu la dhigno aad iyo aad baa u mahadsantiin waan soo dhaweynaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada aad bay ugu mahadsan yihiin cid kasta oo ka qayb qaadatay in siyaasaddaasi soo baxdo cid kasta oo ka qayb qaadatay ama hay'ad ha ahaato ama shakhsiyaad ha ahaato ama dawlad ha ahaato cid walba aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka kala socday ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland kala shaqeeya arrimaha ka dhanka tacadiyada hablaha oo sheegay inay wasaaradda kala shaqeyn doonaan arrimaha lagu xakameynayo tacadiyada ka dhanka hablaha waxa iyaguna dhankooda ka hadlay Dr. Adna Aadan Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere Shukri Xariir iyo ganacsade Cali Xasan oo dhinacoodu tilmaamay inay habboon tahay in la dabar jaro adeegsiga gudniinka hablaha waxaynu nahay ummad muslima waxaynu ka mid nahay qaarad ballaaran ummado badan oo diinteena inala wadaagta oo sida aynuba gabdhaheena u jecel lahay wanaagooda u jecel lahay caafimaadkooda u jecel lahay mustaqbalkooda u jecel lahay iyaguba u jecel waxay hablahooda way soo barbaariyaan asluub iyo edeb bay ku soo koriyaan laakiin se mindiyo uma qaataan waxay aaminsan yihiin bikirka ilaahay ku abuuray inanta mindiyahaad arkaysa lagu jarjaray ama makiinada lagu jaray ama maqasyo lagu jaray waa isla goyntii uune waxay dhaawacdaa ama ay qarisaa bikirkii ilaahay ku abuuray ee uu inantaa ku asturayay ee uu inantaa inanimadeeda ku ilaalinayay oo uu haysto ceeb inaanu inan gudan buursanin oo hooyadii ku raacsan tahay oo aabbihi ku raacsan yahay suuragal inoo noqon maysade dad waxa u baahannahay inaynu runta isu sheegno aynaan xafladaha unu isugu imanine ay xaqiiqadu noqoto in faamiligu gurigu ka xoroobo inuu anigu 3 hablood baan leeyahay 3 habloodba way ka xoroobeen maanta gudniinka sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo aqaafta Soomaaliland Sheekh Ali Cabdullaahi Axmed oo munaasabadaasi bayaan ka jeediyay ku saabsan tacadiyada loo geysto hablaha kana codsanayno dhammaan cid kastoo maqlaysay fatwadaas inay si tay u hirgeliso arrintan waa mas'alo runtii aan sharci ka eegnay diinteena wax ka qabta ka eegnay waxa laga yaabaa su'aal iska weydiiyo maxay goshay waxa loo golay waa noocma waxa loo golay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaan ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kala ciqaab bay ahayd waxay ku ahayd dib markay dhalayso markay guri galayso iyo marka ay dhalinyarada tahay ee runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii ugu talagay inuu ka soo bixi waa ku xidhmeeyay intaas oo dhibay ayaa ku dhacaysay waxa ay dhibaato runtii la iska dhagan marinayay haddii culimo tahay culimadu way iska dhagan marinaysay hadday tahay maxaan ku raadayay bulshada oo hooyay iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen markasta waxa uu ahaa daxyad iyo victim iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu wax iska dhawro marka maanta waynu helinay hablaheennii waynu helinay waxaan ugu helinay ugu horeyn inaynu sharci ilaahay uga fajino subxaanahu wa ta'ala mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinka fooshan fircooniga u aragno inuu yahay gudniin arxan darro ah iyo fal arxan darro ah oo ku dhacay hablaheena ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwo Hindo Jaamac Xirsigaani oo khudbad ka jeedisay xuskaasi ku taxalluqday arrimaha tacadiyada ka dhanka haweenka maadaama oo aad garateen wixii aan diinta ku jirin inaad umada gaarsiisaan gudniinkuna uu ka mid yahay khaasatan ka fircooniga yahay mid aan diinta meelnaba ka soo gelin walaalayaal idin leeyahay oo aan idinku adkaynaya in aynu horta noqono islaam dhaba maadaama aynu dad muslimiin nahay oo marnaba diinteena aynan kalsooni darro ka muujin diinteenu waa diinta aan qabo inay qof kastaba xuquuqdiisa ilaalisay waxaan moodaa inaan diinta ugu dheeraaday waxaanan qirayaa inay diin nasteexa tahay idina waad ila wada ogtihiin waxaan idin leeyahay walaalayaal waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay aad iyo aad baan culimada mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda xeerka nala soo saara qofkii waxa weeyaan jinni ninkii keenaa qaba baa la yidhi qofkii jara inanta ee tola
kaasaynu wada ilaalinaynaa waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba insha allah waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Somaliland gaarsiino samafalka wanaaga iyo nasteexa wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha